nin wuxuu ahaa la socdaa af Ingiriisiga inuu yahay luqada adduunyada ugu xoog badan oo maaragtay waagaasna waan la taqaanaa inkastoo labada qaybood ay midoobeen koonfurtana dugsiyada dawladda waxaa lagu dhigi jiray af Talyaani dugsiyada waqooyigana waxaa lagu dhigi jiray af Ingiriis marka waa ninka go'aan saaray baarlamaanka marsiiyey in koonfurtana dugsiyada dawladda af Ingiriisi lagu dhigo صح markaas fasalka koowaad markaan bilownay waxaan la ku bilaabay kooxdaydii waxaan la ku bilaabay af Ingiriisi isagana sabab u ahaa marka waxaan ahaa aniga koonfurta ardadii u horeysay oo af Ingiriisi in la baro loo bilaabo okay ka hor Talyaani iyo Carabi baa dadka Carabigana waa la dhigi jiray af Talyaaniga waa la bari koonfurta waqooyigana wuxuu ahaa af Ingiriisi iyo af Carabi laakiin annakana la ku bilaabay marka class-kaaga koobaad ee school official u fariisatid aniga waxaa lagu bilaabay kindergarten waxaa la yiraahdaa صح dhigi jireen preparatory dhigi jireen lagu bilaabay صح bay dhigi jireen nursery basically waa saas oo kale waa adiga lagu bilaabay sanadkii ku xigay aad baan u xasuustaa laakiin waxaan xasuustaa maalin baa noo yimid markaasuu sabuuraddu wuxuu ku qoray a b c in af Talyaani